run ma ahayn prank ahayd ahlna xaafadu joogay ana sidoo kale xaafadan joogay wax cunug aan dhalay ma jirto qof walba aqalna qaban wuu og yahay week la soo dhaafay ama 2 weeks ago inaan Mombasa joogay baashaalay raaxaysanay everybody way arkayeen ina maalin baaroos ka tumaay shaqaysanay soo xalba dukaan oo kala hay qof walba wuu og yahay so inta aqliga u saaxiibka ah way ogeed arrinta inay prank tahay so dad qaar waxa iska jira dad yaan hataa sida wiilkan soo hadlaa camal wuxuu isla rasmi appoint keeshay wala hatani ragaa tahay waxa wanaagsan in appoint fiican igeysatid oo ah Soomaalida la soo fariisatid dadka qaarna markii la iloobo ee rabaan in la soo xasuusto ee YouTube ku soo leenaa noqdo qofka YouTube ugu soo laamanay marka arinta sameeyay aniga hadii arabo ina wiilkaas kala dhamaan aan u sheegtay ina cunug u dhalay ana wixii lahaa dad dhahay way jeceshahay dadkaas laga yaabo inuu asaga soo dirsaday waxay dhahayeen way jeceshahay ana hadaa jecelahay waa wixii lahaa waa raadsan lahaa waxa dhila waa ku dhalay been raad mala beento wala soo qabtaa laakiin ani ma wacan asaga ay soo wacay okay markuu asaga soo wacay waxaan dhaxmaray wuxuu yahay before wuxuu ii soo diray WhatsApp-kaygu wuxuu igu soo diray linkigi barnaamijka YouTube soo gali wuxuu igu dhahay maxaa ka jira ha waa run baan ku dhahay waan dhalay because wax lagu dheelo way istaahila ninka ragga ee xaaskiisu dhaqalaysan waayo wanaajin waayo in lagu dheelo meehe in sid buloon amal loo harantii way istaahila okay ani shalay wanaaga aan kugu sameeyay waa arki wayse brother xumaana igu bedeshay okay adoo i xumaysay ayaa hadana ku sii wanaajiyay then maanta markaa aragtay adu ma aqliga laadahay ilmaha adiga gacantaada ku soo dishay sidoo u dhalanaya miis weydisay okay waxa jira dad aan weydiiyay dad u dhaw arintaas iga dagaandagi weysay dad baan weydiiyay dadkaas oo ayada u dhaw oo igu yiri arinta waa been mida ani agteeda ka tihiin I don't care nag warkeed qaadatana ma ihi nag dad waji kalena ma yani alxamdulillah always rasmi aniga rasmi cidna ima biish ana isbiila qofan waji kale ma jirto Soomaali Maxamedna waan ka wada dhalanay cidii qaldan iyo cidii saxana way ogtahay okay way soo wacay wiilkaas wuxuu igu dhahay maxaa ka jira arinka uurka ah sax wuxuu igu yiri maxaa hooyada ugu sheegayso hooyadii uma sheegin aan dhahay hooyadii uma sheegin أنا ما حمس يقصد دروس قف قمنا مس لا صدر even هذا أنا كود الله تقوم شيئين ويا أبا مستشد I know you bro ما تيزوح أبا لده هذا استشد أبا كان جبوت كود جوجا شو كسر عسن أياد بيلان لهاد أو أنا جاي قرصني والبهرج المهدل وكفانا أنا جا ضمر أنا ويل إيشوجا مركل يقولسنا كده برادر ويل إيشوجا هذا مرك أبا نما قصيص أما أو هذا يعني إنا المهيج أجادر ربي ilmahan beenta ilmii runta ka horeeyay ee Djibouti joogay ma biilatid noloshaada adoo magac cunugaaga sheegaysid lagu ma arkin tay sanad iyo bilooyin aan noloshayda ka maqlin mar aan kugu arkay Hargeysa adoo maxal dhig jiray beenta sheegayso dadka reer Hargeysa ku soo sheegeen wixii gurigaas uu ku burburin waxa uu sababa beenta ay sheegaysay iyo waxa adiga aad aastay ma fahantay marka la yahay ku dheelayna ma ahan in aan qofka bini'aadan kamaan walba ku dheeli jiray before sa uu wanaagsan qof walba uu og yahay rasmi ninkeeda lagu wici jiray because waxa aan kansaday wanaagayga qof walba arki jirtay cid ku taqaantana ma laha before rasmi been ma isku sheega misruna la isku sheega okay jisaar waxa la dhahay jisaar naaru gala jisaaraad haadi gabadhi walaasha ayada soo garab qabato ku wanaajinaysay ayaa ku jisaartay soo ina maanta kugu daldeel ani prankigan sameeyay waxa 24 hours kadib aan xiraaray waxa u xiri waay wixii asaga dirtis marka arka asagoo isoo wacaya dhahay oh my god ninka shalay ilmaha ka soo wacanaya rasmi point haystay ninkan waa xawayaan inta ku dheeli karta ku dheel waana kugu dheelay 3 days aan kugu dheelay okay hada maanta runtii soo ogaatay oo cod ayaga duubtay ay YouTube kala soo fariisatana ana hada kule wax lagu dheelo waa istaasha waana kugu dheelay ma fahantay cunug aad hooyadiis ka warqabin si asaga uga warqabaysa brother ma la isku dheela runta ma laga hadlaa mise ciyaar la wada cunug aad hooyadiis ka warqabaysa ilmaha waxa ka horeeyay hooyadii aabaha deys wanaajin waayaan ilmaha meesha wanaag uma yaal ma fahantay okay warkii aan igu sii dheereenin ani cunugayga asaga gacantiisa ku dhintay because ani waa qarinay asaga amaanta in aan sheeg igu kalifay because prankigayga waa iska sii waday sifaan asaga ugu dheelo maadaama arkay inuu calaayo waxaas dhahay ku dheel kan wax lagu dheelo istaahilay teeda kale inuu doqon yahay inuu aqli qaban kala garan waayo cunugu ani jaranjar iga tuuray aan dhiig baxay Hargeysa aan 20 days ku dhiig baxay uu maqlaay uuna isoo raadin Hargeysa dhaxdeeda waa gabadhi ma dhimatay ma nooshahay cunugu ma ku jira oo na dhihin ayu intuu soo wixii ugu dhahooyaa maxay igu sheegayay ina ay dhashay
ma fahanteen qof walbana wuu dareemi karaa ani meesha ka kululahay mise aan wax ka dareemayo nin shalay inta guursata asagoo shilni haysanin aad wadankaaga dadkaaga gurigaaga inta uga tagtay wax walba noloshaada aabayleysay aad raacdo la guurtay abaalkaaga ka dhigo inuu dabada haraanti ka galiyo cuniga ka soo rido telefoonka ka qaato ka jijibiyo shilinka gacanta ku haysan uu ka farmaroojiyo kaas nin ma la dhigi karaa waxa intaas dhan aan u qarinaayeen waxay tahay inaan ahay naag iska adag oo tarbiya lagu soo koriyo oo wax walbana qarin karo aniga soo gudboono wuxuu yiri door jeer aniga qalad liiga galay sug qadaaranayaa horta codka waxaan kuugu soo diray waxay ahayd inaan ku tuso inaad doqon aad tahay ma fahantay ana hooyaday second daqiiqad every day aska warqabnaa you know me bro ma fahantay aada ii taqaanaa dadka ani hooyada lagu qasbayo wac la dhahay oo hooyada loo biilay mihi teeda kale ana hal hooyo midalna boo laba hooyo ay dhashay ma fahantay ayadii soo korsatay 3 bilood oo jiro ilaa intaan ka weynaa hooyadii waa ayadii maahan hooyadii dhasho xamar joogtana waa hooyadii I have laba hooyo ma fahantay aabahay alxamdulillah sidoo kale waa ka warqabaa arrinkan kugu haysta wuxuu yahay waxa rabay inaa xaqiijiyo mas'uuliyad ayaa isaaran mas'uuliyad say ku saarnaani adigu mas'uuliyada ka warqabtaa anigaaba adi mas'uulka ahaa ma fahantay anigaaba adi ka fikir jiro ku ogaan jiray intuu maray intuu aaday muxuu cunay muxuu cabay muxuu xirtay naagta ka fikiri jirta ahay brother naagta waxaan ahay wiiga dhan guriga ku dhex gaajeysneed inta dhaqaaqado shil usoo shaqeyn weysay sugaysa rasmi wax ay xayeysiin ka sameyso ama wax ay dad alaab wax xayeysiiso loo soo diro u fadhiyaa tahay ma fahantay naagta waxaan ahay hooyada aabaha ku biili jirtay soo jisaarnimadaada saida uga xumaa ma fahantay ma ahan in aan wiilkaas wax u qabtay ama wax aan sii inaan sheeganay laakiin asagan ku kala barnaa ana hada qof ceebeenay ama wax aan sheeganay mar hore wax dhigi lahaa saana ku qabtay saana aha kana aha ma fahantay maanta waxaan hadlayaa waxay tahay arrinka brankiga aan sameeyay markuu isoo wacay run way aan dhahay waa ka cod duubay nin ragay ma kan cod ka duubo aboo ma fahantay codka aad duubtay maanta ay YouTube ka soo dhigtay hadaa iga hayn lahayd aniga waxyaalaha social media maalmaha la wareejiyay camal maxaa sameyn lahayd waa isoo dhigi lahayd maaho alxamdulillah isku filana lidhaha waxaan hubaa amse aan maanta aniga isku kalsoonahay waxay tahay inaad adigi noocaaga camalba uuna iga hayn fara aan dadka bulshada dhexdooda inta la isoo dhigay igu ceebeenayo because qofka codkaaga recording garay haduu ka hayn la waxyaalo akhlaaq darre uu soo dhigi lahaa laakiin ilaahay waxa lagu maadiyaa si xalaal la wada ogeyna isku guursanay si la wada ogyahay inaan ku kala tagno ma fahantay naagaha nimanka ku dhagdhawo maxaa la dhihi jiray fiidiyoyada xun iska doomana ma yani hada ahaan lahaa oo maanta ninkaas ninkaygu ahaay uu hayn lahaa fiidiyo qaldan oo rasmi ay leedahay banaanku soo dhigi lahaa because nin asagoo ila hadlay hadda i recording garay muxuu i recording gareenay inuu dadka tuso inuu asaga qaldaneen anina uu qalad saaro ana brother waxa ku sheegaya that was prank ma fahantay waa dhax fadhida prank 24 hours lagu talgalay adaa sii dheeray because adaa isoo wuxuu igu calaacalay marka igu calaacashay ana waaya waxas dhahay cuniga maxaa ka qaldan muriyonaya misada soo haya cunigan Soomaa ki jaranjarta ka tuure cunigan Soomaa ki ku dilay cunigan Soomaa ki telefoonkaada ka qaatay cunigan Soomaa ki boostajada boorma inta ku keena dhahay meesha aadi kartid aad adigu dhiig bixisid oo oynaysid ka soo tagtay wajigii idin dhaxyaalo muxuu yahay hada mar dambe aniga afaare ani aan leey ka soo hadashid inta waxood igu sameeyay on telefoonkii ugu jiro ayaan soo bandhigaya maanta waa awooday jugta ajirkayga u geysatay in aan soo dhigo social media magacaaga in la waayo waan awooda oo dhibka ii geysata Soomaali Maxamed marka dhigas Soomaali Maxamed noo kala garqaada marka daraad xumeeynaysa war gabar hada isku xumaataan gabar guursatay familkooda ugu maatay waa ka soo doonatay si sharaf leh lagu siiyay wadankeeda ku guursanaagteeda raranayda nin naagtiisu uu raran kara waa ay kaxisay hargeysa ay geysay hargeysa dadkii aan ka saayay fanaaniintii waa iga dhax bixisay boorama ay geysay inta waxa ii wadaad inaa hilibkeyga jarjarto maan subax baa jaranjarka iga tuuraysanay hada maxaa dhijir kuusi joogi lahaa maalinta ka dambeysana waa ay qalqali lahayd ma fahantay laakiin alxamdulillah nin ani idilo ii gacan qaad oo ilmahayga banaanka ku soo daaday sikin lama sii noolaadeen waana ka soo tagay hadaan ku jecla kaama soo tageen
فهمتي نيروبي كما صلابتين sababta نيروبي ku salaabtay waxay tahay ina arimahaaga iyo barnaamijkaaga iyo waxaaga ina iska soo baxnay aragtidaada meesha ku iloobo haduu rabitaan ay ka jiro Hargeysan joogla Hargeysa iga mixigtid waa wadan ani adiga u simanahay adiga milid Hargeyso anna mali labadeena waa u simanahay iga man ceerin kartid iga man soo tarxiili kartid Hargeysan kula joogla fanaaniina wada heen meel baan kaaga soo hormaan la rabitaan duu ka jiro waa ku saban lahaa marba meesha taagantaan soo maraa laakiin inaan ani ku riin waxa ku cadeynaya 20 days aan joogo Hargeyso marna ay istal ku jiro marna aan tigid raadsanay indahaaga ima saarin ma fahamtay waxa indahaaga ii saar waysan waa aniga naagnimadeeda because nin ani ii gacan qaado ii dilay oo wadankiisa igu gumeystay subax baska isoo saaraysa ay ugu lahayd guriga kiradiisa hada guriga ka tagaysid guriga kiradiiskeen war ani mihi naag joodari ii sariir ii maacun ka daba hadasho shalay markaan ku raacay alaabtaydan gaday waan ku raacay ana alaabka gurigeyga sharaxda Hargeysa ilaa Booram markaan soo baxayna waan kaaga soo tagay wax walba buuxo meesha adii midkaanimada telefoonka ku qaadanaysi gurigeyga buuxo alaabtiyo buuxdo laptop wax walba gurigaas dhigay saa u buuxo ayaan kaaga soo dhaxbaxay ma fahanteen alxamdulillah maxay maada Nairobi gurigii ka shidan alxamdulillah waa guri aduun wuxuu ii saray malahan ayaan deganahay waan shaqeystaa waxa adiga kaaga baahanahay iyo noocaaga kale ma jirto waxa ku leeyahay hadaad mardama aniga afaar aan leeyahay istiraahda rasmi point ka helasa soo qaado balan iyo axdi waxa igu sibrada aan ka haay wajigeyga sida u bedeshay waa is ogtahay lagu ma sheegay ma fahanteen dadka qaar markii wax lagu sameeyo social media soo dhigan sibrada dibka ku dhacay ani waxaan soo dhigi waxay tahay waxaan fiirnay bilkas shalay wanaagina ka dhaxeeyo waxaas la rasmi haduu xumaaday ha ka daba xumaani gabdho badan arka social media la wareejinayo oo intuu ninkooda dilay wajiga laga halay jirka wax og dhacay la wareejinay aniga jugta la ii geystay daawac la ii geystay ma soo bandhigin qalbigaygan ku heystay social media ma dhigin waa haya sibradu oo farxaan ii geystay dibka waa haya waxaan u soo dhigi waxay tahay rasmiye ninkaasi dad shal wanaag isku barta aheedeen rasmiyay ka wanaagsanaw oo ku soo ceyn karin inta meel ku soo fariisto kuma soo ceynin afka aan shal kuuga amaanin kuuma caynayaan ku dhahay laakiin ana doqon hay malayno maadaama aan ku dhahay kuma caynaya hay ugu dul soconin brother ma fahamtay hada next time isku tiraadid rasmi point ka haystay bahdil balan yaxdi waxa ina Soomaali Maxamed u soo bandhigo jugta ii geysatay intaas warkaas aniga wiilkaas halka hanooga ekaado markii la dhahay